habar wasiirada oo dawladda Soomaaliya ka tirsan nimadu waa darajo Allah subhanahu wa ta'ala ayaana ugu mahadiyaa oo habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa hadal haynta ugu badan ee baraha bulshada labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa ahaa hadal xanafla oo ka soo yeeray Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah shuruuqda Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan kaasoo hawada u mariyay ama social u mariyay wasiirada gargaarka iyo musiibooyinka wasiirada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka tirsan oo maxfal meel dhan oo la marayo oo public ah maradii gogosha lagu seexanayay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen hatta ma sarwaalkii banaanka loogu baxay waa sarwaalkii sariirta ayay la taagan tahay oo isku sawiraysaa markaasay social media ha soo dhigaysaa waa islaan 60 jir ka weyn maxaa kuu hadhay oo da'danaad isu qaawin oo maxaad raadinaysaa risaalada ay gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka soo jawaabtay hadalkii ka soo yeeray Sheekh Maxamed Cabdi Umul waan ku celinayaa haddii cid loo nasteexaynaya idinka u baahan nasteex mararka qaarkood waxaan isiri Sheekh Umul wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ah isagoo lacag soo qaaday dawladdan u wada dhahay oo halkan yimid muxaadaraan ku qabanaya buu yiri wasiirka dhalinyarada iyo isboortigan ah maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooynaysay aaskii almaas elmanu aha ma u garanaynin taasaan u baajiyay oo dawladdana aan dib ugu celiyay inaan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meydka ka aasano way duubantahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Khadiija surwaal wadata surwaalku waa baday diintan waxba uma dhimo labo kugu nasteexaynaa habar baatir awo iyo maalin salaad kasto aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo Allah subhanahu wa ta'ala ayaana ugu mahadiyaa oo habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa habarnimadu faan iyo amaan bay ii tahay aan ku nasteexay dib ugu noqo waxa ummadda Soomaaliyeed ka sugayo cilmiga ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu la yanfac yahay waxba kuma tarin arintan ayaa imaanaysa Sheekh Umul oo ka hadla markii baraha bulshada lagu arkay sawir ay wasiirada ku liibisan tahay shaar iyo sarwaal dumar badan oo Soomaaliyeed iyo dumar caalamka Carabaha ayaa ku liibista libiska sarwaalka taasoo aan dhibaato weyn ku ahayn waxaana su'aal laga keenay sababta sheekha uu kali u arkay sarwaalka Khadiija oo arkay dumar badan oo Soomaali iyo Carab iyo ajaanib kalaba oo islaam haysta culimada ayaa door weyn wax ka qaata bulshada arrimaha bulshada waxaana nasiib darra inay culimada ka hadlin dilalka qaraxyada dhibaatooyinka Soomaalida hareeyay 30 sano taasoo ay wax badan ka qaban kareen dambiyada waaweyn ee dambi ka weyn aanan jirin qof bini'aadan oo la dila kadib burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya ayaa haweenka Soomaaliyeed door wax kool ay ka qaateen badbaadinta qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo iibin jiray jaadka shaaha wadooyinka si ay u helaan nolol maalmeedkooda rag badan oo jaamacada iyo dumar badan oo ka soo baxay ayay hooyooyinkaasi lacagahaasi ay ka helaan jaadka iyo shaaha ay ku biili jireen ayagoo ahaa lafdhabar weyn bulshada Soomaaliyeed kuwaasoo badbaadiyay noloshii qoysas badan oo Soomaaliyeed marka waxaan rabaa dumarkii hore in history inaan wax ka soo qaato ilaahay quraankiisa waxa uu kaga hadla ciyaar ma aha wax kasta waa inaan annaga xikmad ma sheeko kaliya ma aha quraanka sheeko kasta oo ku jirta
waxbay ku baraysaa waa in macnaha aad ka qaadataa darsi waxaan rabaa gabar boqorad ahayd oo yemen ka talin jirtay bilqiis wax yar inaan taariikhdeeda macnaha sheekada dhan ma keeni kara because waqti looma haya laakiin wax yar inaan bilqiis iska taabsiino gabdhahana arrintaas ula dan leh bilqiis boqorad waxay ahayd markaas weli muslim xataa ma ayna ahayn يعني أدلو قدام بيا أدلو عقل بدن وحي هيستي leadership skills أو من كستو جوجي أجاس وسهيسن وريا عبد الناصر محمود حاج أحمد عبد الناصر قجوفا فريلانسي جورناليست and photographer دولقان ميديا شو مركي ودودك ورقدي وكان شري قبط إسلام مركي يعني عدي أما قوله وزير أما برلمانكي المهم دتكي madaxdii isla markii shirkiga qabatay hadalkeeda ila dhageysta gabadhan ee aqligeeda quraanka noo soo gudbinay maxay tiri qaalad ya ayuha almala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim yani maxay tiri warqad oo muhiim ah oo karim ah yaa la isoo tuur isoo dhacday warqadii maxaa ku yaala marka innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim warqadii markuu waxay sheegaysaa kontinuutadeeda maxaa ku yeela tashanaysaa waxay tiri qaalad يا أيها الملأ في رقبتنا في منتهى الديمقراطية وقت قاس هيرك الديمقراطية دي إيجارتي وحيلانا قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري إلى الطليق ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ولي جاي وحيلانا القرآن ما قاضنين إذن كون إذن مرقات قلنين إذن كون إذن كلا تشنين ما هي دكتاتور تاسنا وادا حتى تمرك ولد بالقيس كمان سنة كهر معناها siday qomkeed oo la hadlaysa siday boqorad u ahayd siday u leedahay macnaha democracy-ga markaas ragii fiiri waxaan arkaynaa ragii dumar waxay ku kala duwan yihiin gabadha waxay ka fakaraysaa waxa la soo ogaaday research la sameeyay gabar markay go'aan qaadanaysa nafteeda kama